هاينا waxaan ka dibay tagay soo baaray waxaan kaga ira sheekeeyay shariicada islaamku si guud waxay ka qabto shuruudihii hadaynu degdeg u sheegno ay baashan ku ansaxaysa haday sax tahay culimadu shuruuday u sheegtay taswiiqa noocana ee shabakiga loo harami maaha haramigu ka duwan yahay kan shabaki baa la yiraahdaa taswiiqa shabakiga in uu jiro product ama maadad la iibinaya oo la taaban karayo tii way jirtaa 200 maadadood bay hayaan dawladii cadayga hayaan cadarkii bay hayaan kareemkii bay hayaan kii la cabay sharabadii bay hayaan wixii wax la taaban karayo oo waliba quality leh qofkuna uu iibsanayo sidoo ugu intifaacdo isagu uga faa'iideysto taasi waa koow tii way jirtaa marka kambanigeenni maadadii waynu haynaa 200 maadadood baynu haynaa oo la iibinayo ama 200 shay oo la iibinayo tii labaad culimadu waxay sheegeen in aan qofka bini aadamka markuu membership galayo ama uu xubin noqonayo inaan lacag laga qaadin imka wadaad istiraadii soo gal application طلبات buuxinaysa inaad soo galayso طلبkaagi baa la qaadaya oo lagu process gareynaya number baa lagu siinaya numberka lacag laga qaadi maayo طلبkaas aad soo gudbisay lacag laga qaadi maayo hadii lacag lagu yiraahdo bixi $50 oo fee ama $100 oo fee halkaas taasi xaraan bay noqonaysaa shardiga labaad way waafaqsan tahay oo طلبka wax lacag laga qaadaya ma jirto ka saddexaad lagu oran maayo inta lagu qasbo qalinka iibso منتجك كايبسو لغو قصب مايو كي ادوني سيدا يبساتيد كي ادادو فائده اهانات كفائديسنيسيد اياد لقمانو ادي ان شاء الله تعالى ادي بسنيسا ارنت لباد waxaan la kala qaadanaya waa cumuula waa commission oo kale وعلى اسكو هيستابا كوميشن كاسب بنايم سما بنانا كوميشن كاسو بنايه هو qofka bini aadamka ee dad keenay dadkaasoo keenay wixii ay iibiyeen ayuu commission ku yeelanay la dadkii isagii baa tacabkiisii galiyay isagii baa u sharxaya isagii baa ka warhaya ta kale commission kan uu qaadanaya ku furan oo 300 qof oo keenay maaha 3 generation oo kaliya 3 talaabo oo kaliya ayuu wax ku qaadanaya maxaa laga wadaa de ka tobnaad ee uu keenay ma bagaari karo وسكينة تطبخ سيكاني وحين قفك ما كنترولي كرايو دول مبين نقولي مكان كوا وحكا قاطو لكن صدح ذن جروب أما صدح ذن جنريشن وصدح وكنترولي كرايو هبين كي تلفون يسود ريان واتساب كوضع ليان فيسبوك كوضع ليان واتساب كي يسوق سوق ليان وصدح جروب وتلاذي يتصالي هي عليسكي يشودي وقرينيو تانا ويكسر بحين كم تسويق الشبكة قالوا يقاني ولي بكمبني قالوا الصمية بلن قادية ماله كمبنيه هرامي جاي يقولون كاكل waxay ku oranayaan multi millionaire baan noqonaysa hebel baa soo galay bishii hore 300 kun buu helay hebel waxa male wixii aad dadaashida aad qabatid baad wax ku helaysaa adiga iyo dadka kale ee waxa ka faa'iideystay ta kale waxa shuruudaha kamida in qofka bini aadanka maartay commission kiisa la siiyo oo la dulmin waxa kadalika kamida in laga ilaaliyo kambaniga iyo taswiiqa iyo soo gelinta waxa loo yaqaan qiimaarka in laga ilaaliyo qararka in laga ilaaliyo beenta in laga ilaaliyo ribada intii oo dhanna waanu soo baarnayo kambanigaasi qarar ma leh oo khiyaamo ma leh oo way muntajkii baa jira qimaari qarar toona ma laho muntajkii baa la taaban karayaa wuu jira meeshii riba ma laho wixii wax la kala iibsanayo saddex wixina qofkii loo xisaabinayo beeci baa jira oo riba meesha kama muuqda ta kale أكل أموال الناس بالباطل لما يشرو تدخل هذه اللي قد عيا ما لقى خيامين ما يشرو هنصوت بوضوبه وحويا نقطة سؤال شو تكون ما هتصنت هاي إلهي وحين ولوه ارتجيا كمبني جاب عرستيان تجيان صوباري شروطه فقه هاي قوة في شيء إن كمبني جالس وحلالي هاي تدخل أي كجن عسن كران أو قفك من هذيك المنبر كنا قن كرو وحويا شروطه أي نشجنا دو قفك من هذيك كصبحه وحويا كمبني جالس إن شاء الله تعالى وحده بعطاء إن شاء الله تعالى مله قفك من هذيك وسواس هاي سكيل عليه دعاية دي وحن الله بهرين هاي سكيل عليه وحويا قفك دوحي علم ولا قلنا صوب بندقه أدي أنا أقول ولا هاينا تجلس لسودرية تلفون لسودرول لسكحر ليون سومالي هذا البادلي qofku ma ogolo inuu waqti geliyo inuu baxthi sameeyo inuu wixii soo baaro inuu research sameeyo hebel baa yiri heblaaya tiri wixii xalaal ku noqon maayaan xaraamna ku noqon maayaan waa ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ku cabsano wixii ilaahay inuu xalaaleeyay iska xaraantinimaynin kambaniyada noocan oo kale ah la taageero in haramiga hayna shabakiga la taageero shaqo gelin bay sameynayaan wadankii bay maadooyin cusub ku soo kordhinayaan imka product cusub oo Mareykan baa ay soo kordhiyeen dadkii bay shaqo abuur u sameeyeen waxa weeyaan qolooyinkii wax keenay baa faa'iido ku helay ummadii waa شغل مخايدها فديدا شقة أبوه بمشي يمد وحنا سوقين الدولة دير جلسوا شعبكوا دير جليو حي دعاية دقيقة وحن رخيص كأبلا معناه إنه سكيل علينا إنه ولاية سبحانه وتعالى كعب صنينا إلى خير كهينا وافق شيء دم بيجي كوال كيب الله دافو كم بني جاية كشقيني أنا خير بدون بنقول رجيني